السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن مسكين كهدي جنانا اسكسون نقد ونكسن ما أنت وحا إذي ودنا شيء كوي قصر بدن عني ولا شيء ليمونيتا سودا ولا وادو كليلاب أصحاب دي جنانا وإذن سلامة دمانتين مال والبعد تومك جوجتان ما أنتوا عرفتان دي جنانا قاعدين نسوقتها أنت سوحة واي إن إذن كنني فرحت قليو درتيسا لو سمينايا sheekooyin maanta saa u qosla horta waa badalay ila qosla idinkan wala aan aragno sheekooyinkana waxa waayay macnaha waxa lagu talagalay dadka oo maxaa la dhahaa ana akhriska jecleen dadka waxba akhrinin oo jecel inay wax dhageystaan ana kowka dadkaas maanta laakiin waa liisoo qabtay waa liisoo qasbay wala shay khasabtay xadada waa ina akhrisaa fan of reading ina soo gashaa waa dhahday marka dadka ana marka akhrinayo igu baxda dhageys ma bijecliyo akhriska ku kalsoon anigana lazy ma jirin ana keena adduunka wax u jeclaa ina wax dhageysto marka adigana ila dhageysto dadka dhageysto sheekada jeclaa ka bilow ka aniga jeclaa ku dhinta sheekada waa sidatan waxa hadda ka hor waxa dhacay nin guri dabaq ah degan oo dabaqa ugu koreeya saaran oo iska leersanaya ayaa arkay nin dhulka joogo oo asigana u yeerayo kadibna hoos ayuu u soo degay macnaha nin dabaq kore saaran dabaq kore saarnaa marka wax nin oo asagoo iska leersanaya yaa waxa arkay nin hoos joogo masaakiin hoos jooga ninkii dabaqa saarnaa ayuu arkay uu u yeeray walaal kaalay u dhahay markii uu u yimid ninkii ayuu weydiiyay waxa uu ka rabo kadibna ninkii wuxuu dhahay walaalow nin uu dib haysto ayaan ahay inaad lacag igu kaalmeeso ayaan rabaa ninkii markii u yimid waa ninkii tuugsanay ninkii dabaqa saarnaa u imaaday ninkii uu imaaday markuu imaaday oo dabaqa ka soo tagay wuxuu dhahay walaalow dhibaata ay hayso macnaha saa waxba si iga ah waxa rabaa inaad i kaalmeeso dhahay bal muxuu ugu jawaabay asxaabay fiiriya ninkii gurigi lahaa okay uu dhahay saaxiib soo baxo dhahay nakeen markaas wuxuu saaray dabaqi meeshuu saarnaa dabaqi ugu sareeyay ayuu saaray markaas wuxuu dhahay markaas ninkii intuu soo istaago wuxuu soo hor istaago wuxuu dhahay walaal alaha ku kaalmeeyo dhahay walaal alaha ku kaalmeeyo markuu dhahay ninkii tuugsanay waa xanaaqa intuu dhahay oo dhahay intuu gadiitay oo cagaartay intuu jooga maalta warnaac kal nooc walba isku bedelaa ku dhahay ninka waa xanaaqa markaas wuxuu dhahay walaal maxaa sidee wax ka yihiin macnaha adigoo hoos jooga yaa idhi kartaa hadalkaas oo Allah noo kaalmeeyo way dhigi kartee macnaha maxay xaasinimadaas maxay ka tahay oo kor iso saar markaas wuxuu dhahay labadeena hadii la dhaw yaa xaasid ada iga xaasisan oo dhahay haye way raaxada ku jiro oo u jeedo dhahay waa iska kileersana dabaqa saraha saarnaa macnaha hadaa dan u baahan tahay oo macnaha kaalmo u baahan tahay anoo xagga saaran walaal ay dhigada walaal ii kaalmay so inay dhahada aal rabay soo adiga dabaqa sideedaad inta iga soo dejisay waxa si weydiisay marka adiga adiga gardarno dhama adinkaan ila yaraa laakiin ninka kala qalad saara wayde ninka meel kor saaran walaalo ii kaalmay muudhaha ma dhahayo inuu qof ku soo dago oo ninkan waa nin xishoonay moogtahay wuu tuugsanayo wuu cabsanayo inuu wax helay inuu wax weynay ma oga ma fahanti marka waxa waaye aniga waxa isleeyahay ninkan kale taa qaldan adiga maxaa isleeyahay anigana waxa raacsanahay ninka oo dabaqa saarnaa ninkaas raacsanahay sababtoo ninkaas rafaad kuma jirin oo iska raaxaysanay macnaha ninka kaalmeysana waa fahmi karaa walaal wax caadi oo dhigi kara daadinaysin dadka wax inay dhageystaan jecel la hadlayna marka asxaabay waa aragtaan sheekadii oo walaalkan dijinana anna midaan wataa ma fahanteen dhanka naagaha waxay ku saabsan tahay dhanka oo foosha iyo naagta uurka leh ma fahanteen dumarka gelinta ka daa ma galaaye laakiin waxa waaye dhankaas u tirinayna ma fahanteen walaal sheeko qosol badan islaan foosha ku adkaatay oo isbitaalka saacado badan ku jirtay bal talow maxaa filaysan maalin ayaa islaan fooshii dhalmadii ku adkaatay isbitaalkii ayayna saacado badan taalay ugu dambeyntii rafaad ayay ku dhashay
kadib gurigeedii ayaa la geeyay kadibna dariska ayaa soo booqday islaantii gabar ay islaanta dhashay oo banaanka taagneed ayaa lagu yiri kabaran hooyo fooshii xanuunka badneyd kulaa waxay soo wadaa wala yaabanayn hadda way fiican tahay balse intuu aabba nool yahay caafimaad mayso hooyo caafimaad ma helaysataa intuu aabba nool yahay sheekadan sheeko soo noqnoqonaysa waqti camal maxaa ka fahanteen ninka aqli leh la fahmi karo sheekada أنا waxaa ka fahmay waxa saa u fahmaa nin sheega yani intuu musayga joogo uur kale qaada kartaa fool kale imaanayso magtahay marka waxa u fahmay musaygan iyada hadee kala tagaan maamada inay caafimaadayso okay adiga maxaa u fahantay talow nala qaybs ani isla sidaas u fahmay macnaha aaba intuu meesha joogo ma aragtay aaba intuu meesha hawsha saana u soconay maalin walba hooyo fool waa lagu dhahaa marka gabadh waa dhibsatay xanuunka hooyada u dhibta maybe ha saxa waaye dijanana part 2 kiisu soo dayna sheekada labaad waaye okay sheekada waa sidaan nin reer mudug ah oo masaajid ku tukanaya ayaa markii salaada laga baxay waxa la yiri noo duceey kadibna intuu istaagay ayuu yiri kuwan gablamin jirkooduna cadaabta gubin guulo naga yeel dhamaanteen markuu halkaas marayay ayaa imaamkii yiri jooji bas ka dheh dadkii oo yaaban buu yiri imaamkii waa heestii farxiya fiska محاضر إمامك وهست فرح فيسك يا غير مذقين نينكي دعيناي أو قصل أفك جرسوني أيا يري إمامو إلين هيسا وادني ستا إمامها قار وحاواي يا بابك هذا لما قال كرام عليه يا كجرتا يا نقيل عليا يا شيكوين كلا أساس على وحاول كوا كسي قصل بدن واي سيدا سرجينا إن شاء الله وحنا جالس عنيسان بيجينا channel هل كان هاد إيجا داوانيسان لايك سبسكرايب صارنا دعوسي ماشس جدودا سبسكرايب مركا هذا هسا لايك شير كومنت لكن وح مهم سبسكرايب يجنبلالك جنبلالك معنيه سنة حواي مركا فرتتسي أو وح والبو حتى أسان أصور نيرو صور دعو سبسكرايب مركا هذا جنبلالك all هذا هسا everything أسوق ليو هراك على صعنيسان